Oh my God, mashallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, soo dhawaada. Maanta mashallah, maanta aad baan u xamaasadeysanahay. Alaykum salaam Maxamed Yaasiin waa idin salaamaya. Meel walba to caalamka ka joogtiin. Soo dhawaada si shargalay waa ka xumahay. Mar dhaweyta live baan ku jira waa mudaaharaadaay. Khadka because freezing ka qabowga jiro waa oh my god waa my negative something weeyaan. Xaaladda ugu dhacday waxa waa telefonka watay waa damay wallahi been ma gacmaha guduud bay noqdeen ma faraha cidiyaha yaa ikagay moogtahay mashallah insha Allah haduu la yiraahdo waa guuleysan doonaa maalin dhaweeto live soo galay Soomaali badan oo ila yaabaneed ba jirto moogtahay Soomaali fara badan oo aad ila yaabaneed aad iyo aad ma garanaysaa Soomaalidana dhibka jiro waxa weeyaan waa siyasna moogtahay yasidu wax wanaagsan ma waxaan idin balan qaado idin sheegay inaan Trump campaign aan kicin doono naara Soomaali if Soomaali haday igala qayb qaataan oo Soomaali igu soo biiraan mashallah waxaan idin balan qaaday niri I'm a Somali American. I'm a member of this community in United States, this great country. And markaan soo galay aan ciwaan ka dhigay Trump ban campaign ku kicinaya madaxweynaha soo dhawaada fadlan si share garay insha Allah. Soomaali badan oo Minneapolis ba maanta ku suganahay magaalada gobolka Minnesota. Soomaali badan baa la degan qabiil baa subursanayna reebel baa subursanayna waa kala degannahay waxa degantii 24 ka reebel daarood Carmel hawiye ciina hebel baa lagu shidaya hebel baa kane waradiyadu way tagtaa dunyada inaa wax la qabsatid weeye caalamkan socdo mashallah soo dhawaad meel bata joogtay shishar garay okay warqad baa halka haya mudaaharaadka hadda waa soo dhamaaday mashallah waa ka soo tagay gaariga soo galay waa isku leeynay raayna wallahi cidiyaha ay baxay I swear God qabowga jiro banaanka ka dhacahayo mashallah inta kali ay ku taageeri karay walaalaha muslimiinta Falastiin ee xaqdarrada dhulkooda lagu haysto ee xaqdarrada magaraysa lagu takoorayo ee xaqdarrada lagu bahdilayo ee magaraysa Arab ay ka heelisay ee magaraysa Allah musta'an maxaa dhigi kara waa iska cilo kara the only thing I did today for them aan u sameeyay all caalamka oo dhan mashallah reer Muqdisho waa maasayihiin magaalooyinka kale Soomaaliya kamid soo dhawaad fadlan si share gareeya insha Allah dilaram waxay bayda faashinayaan okay tani maanta dhacday Soomaali igala ma qayb qaadanin reer Minnesota oo reer Minneapolis mashallah Chicago waa laga mudaharaaday waa laga soo banaan baxay reer Ohio maan la weetaan la hadlay reer Seattle maan la weetaan la hadlay dhageyso waxa maan la weeteeda ku dhaa office-ka ama xafiiska ama office-ka state-ka ama campaign-ka galay qolada dimuqraadiga ee magaraysa impeachment-ka rabta inay sameeyso ninkani office-ka ma feed gareyn kar aan idin ku dhahay tag is soo register gare deen walaalahaaga afkaaga ama socod wada dheer baa soo marnay waxaan tusaynaa shucuurtanada waxaan tusaynaa shacabka Mareykanka inaan ka xunnahay shacabka Mareykanka they have power oo codkooda oo magaraysa freedom of speech wax la yiraahdo istaa soo dhawaada okay program kala soo socdo waxaan rabaa programka soo socdo oo Trump warqada wax ku qoran akhri Trump out now okay let me kamerada dhinac kale gadiye okay Trump out now waa muslimku baangareynay wuuna xaqiray wuuna takooray wuuna yasa wuuna racist nagu sameeya akhri wax meesha ku qoran okay Saturday January 20, 2018, 1 p.m. all America oo dhan yan campaign ka bilaabena America oo dhan ayaa campaign ka bilaabena waxaan u dabaaldegaynaa intaas feere Black Lives Matter and immigration waxa weeyaan immigrationka no ban no bomb no war free Palestine mashallah okay I'm a taxi payer anigu taxi payer baan doqbalow okay halkan marka warqadan iyo macluumaadkan ay idin soo gudbinay hadda maanta waxa campaign ka bilawnay anigu reer Virginia ana maanta waxa campaign ka bilawnay oo aan dhex soconay magaalada Minnesota way u target gareernay Somali shame on you
all Somali community in Minnesota. Shame on you. Shame on you. Malidawetana wan ka hadlay. Shame on you. Reebel ba subur sanaysan. Naib qabiil ba idinka buuxo. Reer ba idinka buuxo. Idinka is jalaafeenayo. Idinka is bursanayo. Idinka is xoog weyn. Why all dadka maanta mudaharaada qof Soomaaliya oo suurada Soomaaliga leh ana ku jiro. Why we target in Minnesota, Minneapolis? Because of we believe the majority Muslim Americanka inay degan yihiin magaalada Minnesota. Laakiin waa seexateen waa hurudeen qabiil baa idinka buuxo cuqdad baa idinka buuxdo reebel baa idin dishay wallahi wa billahi ta'ala inaysan baynahayn reebel baa idin dishay qabiil baa idin dilay cuqdad baa idin dishay walaalihiina Falastiin ee maanta gaalo u banaan bixayso oo banaanka ay qabowgaas loo soo baxay wixii ka dhibayso male maanta number culus baan rabnay lambar aad culus maalin dhawata halkan soo dhawaada fadlan si gudbiya insha Allah sida tan hadda aan ta kale tay hadda qoondeynayno si aad member uga noqotaan si aad isu register gareysaan lacag laga ma rabo dhaqaale laga ma rabo gaari laga ma rabo hunguri laga ma rabo cunto laga ma rabo aad ii dhageyso ma sha Allah cunto laga ma rabo lacag laga ma rabo dhaqaale laga ma rabo codkaaga iyo physically adiga kaliya lagu baahan yahay fadlan soo dhawaada si share gareeya insha Allah haduu la yiraahdo walaalaha Falastiin waxay nooga baahayn cod bay nooga baahayn walaalaha Falastiin waxay naga rabaan inaan garab istaagno walaalaha Falastiin waxaynu u baahanahay inaan u muujino Soomaali hadaan nahay qurbaha meel walba aan joogno inay walaalaha naga yihiin aad ii dhageyst dad badan waxaan arkay reer Minnesota walaalahooda u xoog badan maalinkan halka ka hadlay 1 week ago yaa ka hadlay baashan aad ii dhageyst 1 week ago ayaa ka hadlay waxaan dhahay fadlan haddii aad Minnesota degan tahay haddaa Ohio degan tahay haddii aad degan tahay Seattle Washington haddii aad degan tahay meelaha magaranaysa maasha Allah isteedada dimuqraadiga ee magaranaysa arrintan campaign-keeda ka socoto fadlan isa soo register garee waxa laga yaabaa codkaagaas inuu wax weyn taro soo dhawaada fadlan si share gareeya insha Allah haduu la yiraahdo campaign-kani waan wadayaa xilkana ninkan waa ka qaadi doona insha Allah okay timaanta way idin dhaaftay aad ii dhageysta timaanta way idin dhaaftay waxa weeyaan aad idinku eedeen maayo waxa laga yaabaa qaarkiin alaba kala iskaga jirteen waxa laga yaabaa qaarkiin aad reality u qaadan waxa laga yaabaa qaarkiin inay macnaha joke aad u maleeyseen waxa laga yaabaa qaarkiin inaad duqbilow u macnaha iska jaalabuteen yes sometimes when u jaalabuteena sometimes when isku kulleena laakiin waxa reality-ga sometimes ee xaqiiqda dhabte walaalkaaga muslimka walaalkaaga magaranaysa garabkaaga baahan uu ku baahan yahay sometimes inay garab istaagtay okay soo dhawaadan si share gareeya si hadar ogaadaan okay taariikhda Cedar Minnesota waa ka tagi doona aniga insha Allah haduu la yiraahdo campaign-kana uu soconaya aad ii dhageysto fadlan meesha share ka taabo si gudbi si walaalaha Falastiin ee cod uga helaan dalka Mareykanka si ay cod uga helaan dalka Mareykanka okay maalintu markay tahay aad ii dhageysto Saturday January 2018 waa maalinka madaxweynaha dalka Mareykanka maalinka dalka madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Trump uu hal sano jirsanayo uu hal sano ka soo wareegatay maalinku xafiiska la wareegay okay waxa campaign Mareykanka dhan aan ka bilaabeynaa oo ka socdo in la isu soo baxayo dadweynaha loo muujinayo qolooyinka senatarada ee caalamka muxuu ahaa Mareykanka hogaamiyo aan u sheegayno in ninkani halkii sano uu dalka haystay cusurinimo iyo magaranaysa ee kala takoorid iyo magaranaysa ummadda inuu kala gaawiyo inuu ummadda isku diro fadlan share taawo hadaa reer Minnesota tahay hadaa reer Minneapolis tahay warqada si fiican u akhriso waa xaafadanada waxa la qabanqaabiyay xaafadanada magaranaysa la isku imaanaya waa 1:30 PM January weatherku waa kulul yahay I know waa qabow yahay laakiin walaalahaaga muslimiinta ee reer Falastiin wax kale tood ku caawin kartid malaha dhaqaale kaaga ma baano hunguri ma kaaga baano wax dhar kaaga ma baano shilinka ma rabaan physically clear dareenkaaga inaad u muujisid waad ku jirtaa dadka la baangareeyay dadku Trump baangareeyay adigu waad ku jirtaa waxaad ku jirtaa dadka la cusuriyeenayo waxaad ka mid tahay dadka magaranaysa Black Lives Matter ka mid baa tahay
immigration ka mid baa tahay allahumma musta'an dadka la baangareeyay wadankaaga ku jiro adaa ku jirto Falastiin waa walaalaha naga ma sha Allah okay intana qodobe yaanu ku haysanaa wuuna rasisti gareeyay wuxuu nagu sameeyay magaraysaa saxiyamsi nagu sameeyay wuxuu nagu sameeyay magaraysaa wax walbeeto oo dad lagu cusuriyeeyo oo magaraysaa islamophobia wax walbeeto nagu sameeyay cod baanu leenahay aadi dhigeysta cod baanu leenahay waan muujin karnaa dareenkanaga meesha la iskugu soo baxayo waa Cedar weeyaan waa xaafadda Cedar ee Minneapolis yaa la iskugu soo baxaya halkaas uu socodka ka bilaaban doona waxaa la rabaa lambarka ugu weyn aadi dhageyso maanta Soomaali qabiil kama hadlayno maanta Soomaaliya iyo hawsheeda kama hadlayo waad qiiroonaysaa gurigaaga joogtaa macnaha baqin ana geesinimo ku siinayo aadi dhageyso geesinimo ana ku siinayo wadanka Mareykanka xor baad u tahay aadi dhageyso xor baad u tahay inaad fikirkaaga codkaaga iyo ma garanaysaa ad practice ku samee hadaa Soomaali tahay oo American citizen tahay hadaadan waligaas xaqiijin hadaadan waligaas teen amendmentiga leeda adan ku practice gareen right now what ku practice garey kartaa right now macnaha benefitka sharciga lagu siiyay awoodda lagu siiyay xuquuqda lagu siiyay waxaad ugu helin kartaa walaalaha muslimiinta walaalaha black immigration ko adiga ka mid tahay iyo muslimiinta la baangareeyay aadi dhageysta soo dhawaada insha Allah haduu la yiraahdo macluumaadkan aan hadda idin la wadaagayo wuxuu dhacayaa January Saturday-da 2018 1 p.m. Cedar baa la iskugu boqorka shanta Soomaali kulaha Cedar Israel fever bukule aad Israel fever qaar baa nooca fikray waa qof Soomaali waxa laga yaabaa inuu isleeyahay doqbalow xume waxa laga yaabaa inuu isleeyahay Soomaalida kale meesha wax soo qorayso